qalbigayga laga saari waayey tiri markii qalbigayga laga saari waayey ayaan ilaahay waxaan ka baryay tiri ilaahayo 4 sano miyaa laga joogaa xaajigayga intuu uu dhintay ilaahayow rabbiyo waxaan kaa baryayaa ninkan hadduu ahlu naar yahay oo addoon cadaabtay uu yahay ilaahu waxaan kaa baryayaa qof aad cadaabta kama daba balaanbali karo ma ordi karee ilaahu qalbigayga iiga saaro itus ilaahayow hadduu yahay addoon aad jeceshahay oo aad meel qurux badan geysay oo aad janno gelisana ilaah waxaan kaa codsanaa inaad itustid kabacdi waxaa dhacday tiri yacni qof janno la geeyana waxay tiri adduunyada maadaama aakhiro ilaahay nimco uu siiyey waa ka sabraayay tiri anigana nolosha iskuma cadaabayo waa guursana 4 sano laga joogaa gabar yar oo dhalinyaraha ah haddii la naarana waxaa eriyay tiri addoon ilaahayba naaro alla nacayaan iri ilaahu addoon aan nacday kama daba ordi karee ilaahu qalbigayga iiga saaro rabbiyo raxmaanow ninkaas ilaahu qalbigayga ka saar habeenaa cisho dukaday tiri markii aan cishihii dukaday ayaan seexday tiri markii aan seexday riyaan galay tiri yaa subxaan allah markaan riyadii galay tiri waa la iwaday waxaa la igeeyey ninkaygii markii ninkaygii la igeeyey tiri manaar ayuu ku jiray oo ilaahay addoon uu nacay uu cadaabayaa ma jannuu ku jiray السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جانكيغا ايان قوبدون ومركالي سو نقضو ناكسني موقال كلا عصب فضلا هدا ايقو عصب تاولا سبسكرايب ايسار كمن نقاس حبتيدا هدا هوري جوكتين موقال كان لايك ايسار وانا مهدسنتين دمان ولا لاكو حيران جانالكيغا مين والبواد جوكتين وحان الهي دين كغرجينا يا نبد يعاف مادنا تكون ولاتان اصحابت عصب يكسو بيرت جانالكيغا وحان لاي قاع مفرون كسو دوادا جانالكو وا جانالكينا ومركالي ايا موقال كلا عصب اما قصة كلا عصب قصة ما انتا ايدين وضوا قصة دي ان ايدين بلانقاضي in ay tahay qiso wax badan noloshaada ka bedeli doonto qisadan waxaan rajaynayaa in qof walbo oo markaasi daawado inuu sheer gareey doono si dad badan ama dadka nagu xiran ha noqoto ama dad kale ha noqoto in ay wax badan uga faa'iidaan qisadan markii aan dhageysanayay gabadhii ila soo wadaagtay runtii in badan ayaan ku celceliyay wax badan ayayna noloshayda ka bedeshay waxaan rajaynayaa adigana sida ay nafsadayda wax uga bedeshay inay wax badan kaaga bedeli doonto qisadan waa qiso duruufo fara badan caqabado fara badan dagaalo dhalmo la'aan isla guursi yacni marxalado fara badan wadato ilaa markii dambena kusoo biyo shubanaysa murug iyo tiiraanyo balse waxaa ku dhex jira in aan wax badan oo nolosheena wax ka bedelayo aan qisadan ka baranno qisadan waxa ay ku dhacday Caaisho waxay qisadeedu ka dhacday magaalada Muqdisho waxayna dhacday xilli dalku uu ku jiray marxalado dagaalo waxay tiri anigoo 12 sano jiro ayaa waxaa dhacday in maalin maalmaha kamid ah aan kulanay gabar aan saaxiibo ahayn gabadhii markaan kulanay ayay waxay igu tiri Caaishooy waxaan rabaa abaayo inaan ku baro nin xaajigayga ay saaxiibo yihiin oo guurdoon ah waxaan ku iriyay tiri abaayo aniga guur diyaar uma ihi ee ka waran haddii aan heblaayo gabar markaasi aan daris ahayn ayadana ay saaxiib lahayd anna aan saaxiib lahayn aan la ahaa haddii ka waran ninka aa sheegaysa aa heblaayo barno waxay igu tiriyay tiri okay war iiga keen anaa u soo sheegayaan eriyay tiri markii sheekadu ay intaas noo marayso ayaa waxaa dhacday tiri oo aynan kala tagin oo warka gunaanadkiisana aynan afjarin ayaa waxaa dhacday tiri in gabar kale oo daris aan ahayn inay sheekadii naga soo dhex gashay oo nala soo istaagtay markii gabadhii ay nala soo istaagtay ayay gabadhii saaxiibadii ahayd warka intay ii sarbeebtay waxay ugu tiri haya Caaisho goormee jawaabkaa helaa maalinkaas marka waxay tiri waa maalin talaado ah markaasaan waxaan ku iriyay tiri waxaad jawaab iga helaysaa maalinka arbacada ah insha Allah markaas igu tiri ma hubtaa inaan kaa helaayo jawaab maalinkaas maaniga been iga baratay waa iga helay aan ku iriyay tiri sidii aan ku kala tagnay aniga waxay tiri isma dhibinaysaa u sii socday gabadhii aan u ballan qaaday in ninka la bari doono guurdoonka aan u tagay balse gabadhii waxay igu tiri abaayo aniga nin kale xiriir la leeyahay marka nin ma rabo saas ula soco okay aan ku iriyay tiri gabadhii maalinkii aan ballanay ayaan is aragnay tiri markii aan is aragnay ayay igu tiri haye jawaab maxaa ii wadaa markaasaan waxaan ku irinaa heedhe gabadhii heblaaye ahayd waxay igu tiri
abaayo guur diyaar uma yacni ninkan diyaar uma ihi nin kale ayaa heshiis naga dhexeeya gabadhi saaxiibada ahayd way yaabtay tiri naaheedha maxaa kugu dhacay na adi inaa jawaab ii keenay sidaan u fahmay na ani adigiyaa ninkii waxaan ku iri gabadhi way aqbashay xaajigaygii wuu u sheegayo wuxuu yiri gabadhiiga xaaskayga saaxiibadeedaheed way ku aqbashay aniga abaayo saas kama wadin ani adigu waa isfahmi weyn maadaama warka ay ii sarbeebtay gabadhaas inaan qabarkaaga keenayo ayaa aniga ku iri jawaabaa iga helay adigaasaan u qaadatay gabadhii adigu waxaan ka cabsaday tiri inay iga xumaato xoogaa way isxumaysay abaayo waa ceebaysay ninkii waa u sheegay saasay igu tiriyey tiri markaasaan waxaan ku dhahayay tiri qalbigan waxaan ka dhahayay tiri horta intaa saaxiibada intaas yartaa waa ku kala xumaa lahaydeen oo ay kaa xumaa lahayd iska aqbal ninka ma walaa kida isku xoog lasu guursanayay iska aqbal kabacdina iska buri awal mara oo markaasi aad meel wada fariisatiin waxaa tiraa waree dhowrdi dhaaf guur diyaar uma ihi laakiin waxay tiri wuxuu ilaahay subxaana watacaala soo diray ama wax samada ka qoran qofnima bedeli karo waxaa dhacdayay tiri markaa inay tiri haye goormee ballamiyaa haddii aad aqbashay waxaan ballamiyey tiri xilli 8 saac oo duhurnimo ah ama 2 duhurnimo xilli waqti qaanfur xilligaas wax la shukaansadaa ani waxay tiri waxay iga tahay waji kaamalihi waxa wajiga kaamalihi tiri iska burle inta aragtid si aysan saaxiibada kaaga xumaan laakiin si ilaahay wuxuu soo diray tiri lama buri karo ninkii ayaan ku uriyay tiri haye maalinkaas arbacada ah isla maalinka arbacada aan kulmayno saacadaas ballami okay waa la ii ballamiyay tiri wiilkii is aragnay wiilkii wuxuu noqday tiri wiil aad u qurux badan oo waxay tiri asaga dhan akhlaaqda iyo diinta iyo hadal deganaanta iyo waxay tiri adigu qof aan la tuuri karin ah laakiinse waxay tiri waa wiil markii aan wada sheekaysanay qabiil ahaana qabiilada dee Soomaalidu qabiil kama dhamaatee aniga qabiiladeedii iyo qabiilka uu ka soo jeedo markii la fiiriyo xoogaa qabiilada iska yar ah kan kale waxay tiri waa wiil faqiir ah oo aan waxaysanin anigana waxaan ka soo jeedaayay tiri cid ladan oo Ilaahay uu xoolo siiyay sidii isku hadalla isku dhaafsanay tiri aniga dirqis ay biga tahay tiri saaxiibtay aan ku qancinaa wax rajaa kamalihi markaas wuxuu igu yiri tiri hiblaayo abaayo maalinka oo waxaan kulmeynaa labaad maalinka jimcada maalinkaas waxaa la joogayay tiri arbaco sidii aan ku kala tagnay tiri waxaa dhacday tiri maalinkii khamiista ah maadaama aan asaga iyo anigu ballansanaha jimco ayaa waxaa dhacday tiri in telefoon oo markaasi gacanta line wadanka laga isticmaalayay tiri telefoonada oo gacanta ama mobilada dadka lacagta haysto ama dad dhif ah haystay tiri telefoona la ii soo iibiyay markii telefoonkii la ii soo iibiyay ayaan waxaan damcayay tiri kaar inaan ku soo shubto oo ninkii inta waco ilaan telefoonkiisii uu siiyay tiri aan iraado abba wax ma kuu sheegaa hadda anigu arrimo kala igu soo baxay guur iyo shukaansi iyo sheeka midna diyaar uma ihi hortaada hor allo oo aan sidaas ku buriyaan go'aansaday tiri intii marka aan kaarkii soo qabsanayay tiri ayaa waxaan wadada isaga hor imaanay gabadhii saaxiibaday ahayd oo ninkaanba inaan barto sabab u ahayd gabadhii markaa iska hor imaanay waxaan dhahay heblaayo teleefonkaanaan qaatay lambarkeyga iga qaadatay tiri markii lambarkii iga baasatay ayaa waxaan rabaayay tiri markaan kasoo tagay inaan teleefonkii kaar ku shubo saa isla markiiba waaba ninkii raqamkeygii dhab ku soo siisay tiri ilaa ninkan waxay tiri ilaahay agtiisuu ka qoran yahay waxay tiri markay ninkii raqamkeygii soo siisay ayuu isoo garaacay tiri anigoo weli kaarkii ku shuban markii uu isoo wacay wuu ila sheekaystay markaas wuxuu dhahaye maalinka jimcada balantii sideena waa mooho waa maalin khamiisay tiri marka okay aan ku iriyay tiri aniga waxaaba ii qorshaysneeday tiri inaan waco oo aan buriyo haddana waxaan isra asagiyaa ku soo wacay oo teleefonkaaga soo hele bal hadda ha burin ilaan meesha qadaraa ka qoranay tiri ma aanan burinay tiri okay jimcaha is arkaynaa sidii markaan ku kala tagnay oo balantii jimcahana aan meesha ku xariiqanay oo aan isdhahayo alla ilaahay maalinka jimcaha kan yuusan dib kugu soo noqonoo buri waxaa dhacday tiri galab galbaha kamid oo galab khamiisa ay tahay subaxina asaga aan la hadlay ayaa waxaa dhacday tiri gabar aan eedo u ahaa waxay dhahday tiri eedo waxay tiri eedo dugsiga waxaa la dhahay muxaadara la qabanaa qof qaangaar ah inuu ku soo raaco waa marka inaa muxaadarada ii raacdid waa markaasaan xoogaa ka cudur daaray gabadhii waxay tiri may eedo inaa ii raacdid waa okay aan eriyay tiri sidii aan muxaadaradii ugu raacay haddii waxay tiri muxaadaradii aan tegey shiiqii
wax kalaba kama sheekeynayo wuxuu ka sheekeynaa dadka inaan qabiil lagu yasin dadka inaanan duruufta iyo dhaqaalaha lagu nicin inaanan la isfaquuqin in dadku ay siman yihiin in xoolaha uusan dadku kala dheeraynin in maxaa la dhahaa qabiilka uusan dadku kala fogeynin muxaadaradii oo dhan inay ani iga hadlaysaad moodaa muxaadaradii markay soo dhammaataan waxaan isiriyay tiri adiga naftaada markaa la hadashid ninkan aad hadda baratay qurux haddii la dhaho wuu kaa qurux badan yahay waa qof qiimo badan waa qof hadal wanaagsan waa nin diin iyo jamaal iyo qurux ay ka muuqatee labada maada aad u burinaysid waxa sheeqan uu ka hadlayay soo maaha mid waxay tiri waa midda ah qabiil oo qabiil aad wiilkan ku yasaysaa midna waxay tiri waa dhaqaalahaana ma ahanay tiri inaa maanta ka baqaysa haddii ninkan aa guursatay baahi inaa u baktinaysid oo gaajo ay agtiisa kala kulmaysid laakiin waxaad ka baqee ciddaada dhaqaalihii uu ka doono lahaa aniga marka waxaan kasoo jeedaayay tiri familadan oo ilaahay xoolo uu siiyey waxay tiri gabdhaha ila dhashay waxaa soo doona jiray niman dhaqaalo leh oo ilaahay hanti uu siiyey midda kale waxay tiri meher waxaa laga bixi jiray tiri lacag fara badan aroos waxaa loo tumi jiray tiri kaala araga markaasaan waxaan isiriyay tiri adiga dad hortood wuxuu ninkan ula dul tago leh ma ahano iyo qabiil bal ka waran haddaa ka tanaasushid oo ilaahay dartiis aa ninkan ku guursatid oo qabiilkan iyo lacagtan dhan aa ka tanaasushid because waxay tiri wiilkii markaan fiiriyo naftayda waa u qaadi lahay tiri laakiin ehelkaygii markaan fiiriyo lama hortegi tiray tiri qabiilkuu ka soo jeedo iyo faqriga uu yahay markaasaan waxaan istiriyay tiri dadkaas dhan inta ka dhaga xiratid yaa ninkan guurdoonka ilaahay dartiis ku gal waxaasna ka dhaga xiro wiilkii marka waxay tiri anigoo isu soo dhaqay iyo asagoo awalba guur u diyaar u ahaa ayaan waxaan kulanayay tiri maalin jimco ah waa maalinkii aan ballanay markii aan kulanayo wuxuu igu yiri Caaishooy aniga waxaa ah nin guurdoon ah ma rabi sheeko dheer iyo xiriir dheer waxaan rabaa abaayo inaan ku guursado markaasaa waxay tiri qodobbaa meel isla dhignay shuruudo aan meel isla dhignay saasna iskula dhaqano adigu un isfahan halkiyaa isku fahnayay tiri markii aan isfahnayo wuxuu idhahay tiri haye ciddaada goormaa ii geynay markaasaan waxaan ku dhahayay tiri ciddayda aan kuu geeyey maxumee ciddayda dhaqaale maxaa u geynay markaasuu wuxuu iriyey tiri intii ii sarbeebay nin aqli badan uu ahaay adiga iska daa dhaqaale intaan u geynaaye bal cidda ii geey aniga ilaaha i baray gabar si loo doontee cidda ii geey okay haye marka meher meeqo ayaad ii ogoshahay markaasuu meher wuxuu idhaha baayooy waxa aan awoodo aniga meher waa kuu ogolaanaa markaasaan waxaan ku irinayahow aniga gabdho waxaa ila dhashtay oo dhaqaalo aniga gabdho waxaa iga dambeeyay tiri dheeman lacag leh oo ilaahay hantisii uu soo doontay oo waxay tiri mid 5,000 astaghfirullah mid lagu mehersaday tiri $500 xilligaas lacag ay ahayd gabadhi lagu mehersado mid $1,000 lagu mehersado lacag fara badan laga keeno gabdhihii aan ka fakaraayay tiri markaasaan waxaan ku iriyay tiri aniga saas taa waxay tiri markii gabdhahaas loo fiiriyay in la iga kalsooni badan yahay ma ogiye waxay tiri kama liitay tiri marka waxaan ka fakaraayay tiri ninkan faqriga cid inta ageeyo haddana meheryaanyo ah igu xirto markaasaan waxaan ku iriyay tiri hebelow meher waxlaalo macaanow bal $500 ama $1,000 aan sheegano ii sheego hadhow markii cidda horteeda intaas u sheegno waa aan ka tanaasulaa oo 250 uu meherkeena noo noqona 500na cidda aan qiyaano macnaha u sheegno sheeg macnaha meher waxaa jiri jiray maaho intaas iigu sheeg afka uun ka sheeg hadhowna aan la isiinayn xaqiiqada waxaa iskula xirmaynaa 250 laakiin cidda waxaan ula hortagaynaa $500 markaasuu wuxuu igu yiri tiri Caaisho abaayo waxaanan haynin ha igu xukumin meherka $250 ka dhig ballan waxaan kuu qaadayaa biri ilaahay hadduu xoolo isiiyo $1,000 hadduu ilaahay isoo geli inaan ku siinayo aanan ku dhehaynin meherkaagii 250 uu ahaa inaanan ku dhehaynin laakiin waxaanan hadda haynin ha igu xukumin dadka hortoodana beeniyaynan ka sheegin aniga 250 aan diyaar la ahay 250 aan kugu mehersanaa hadalkii iga daadagay tiri ragnimada iyo waxay tiri ninkan inuusan been iyo laalaab iyo luqaafo uusan diyaar u ahayn sidii aan ciddi ugu geeyay tiri markii aan ciddi u geeyay waxay tiri familkayga horta way soo dhaweeyeen tiri cid lacag laba ahaanay waxaa la dhahay soo dhawow anaga dhaqaale ma kugu xirayno ugaasyo iyo odayaal iyo adduunyo noo keen ma ku dhahayno anaga adaa gabadha naga dhaqanaysid ugaasna nooma dhaqo oda dhaqameedna nooma dhaqo
dhaqaalana gabadheena dhaqi maayo soo dhawow gabadha waxaad ku guursanaysid waxaad ku qurxisanaysid waa adiga iyo ragnimadaada markaasuu wuxuu geeyey tiri lacag haddii aan ogaa lahaa ay mustaxiil tahay inaan ka aqbalo ninkaas inuu yacni uu ciddayda u tago laakiinse wax walba waxay tiri ilaahay hortiisay ka qoran yihiin lacag yaroo waxay tiri adigu birrif uu iga aqli badiyey iima uusan sheeginay tiri bisabdi beenna iima uusan sheeginay tiri oo lacag intaasaan geynaa ima dhihina ciddii waxay tiri lacag yaruu u geeyey lacagtii markuu u geeyey arooskii waxay tiri ilaahay iska barakeeyey aroosaana loo dhigay sidii aan ku aqal galnayay tiri markii aan aqal galnayay tiri wiilkan oo aan isnaqaanay tiri si fiican u fiirsayaa waxaan isbaranayay tiri maalin arbaca waxaan kulanayay tiri maalin khamiisa arbacadii aan isbaranay arbacadeedii kalena waa aqal galnay maxaaba lis yaqaanaaba isbuuc markii aan aqal galnayay tiri ayaa waxaa dhacday wiilkii inuu xanuun la soo dhacay annagii oo 7 ku jirno uu tabcaan noqday markii uu wiilkii tabcaan noqday ayaa maalmaha kamida isbitaal uu aaday wuxuu isbitaalkii ka soo noqday tiri asagoo murugsan oo wajigiisa murugta ka muuqato aadan ka akhrisan karin aniga dhowcil yaraan ahay tiri ma gartay tiri qofka murugta iyo dhibaatada iyo la qaybso balse waxaan dhahay tiri maxaa kugu dhacay hebelow markaas wuxuu dhahay tiri maxaa kugu dhacay ma leedahay maxaa kugu dhacay abaayo waxaa jirto arrin aad u argagax leh aad u naxdin leh oo haddii aan kuu sheego runtii aan aad uga cabsanayo markaas wuxuu igu dhahay tiri abaayo aniga markii aan sheekeysanaynaba waxaan kuu sheegay kumaanan qiyaamin in hadda koor uu dhaawac isoo gaaray dhaawacii markuu isoo gaaray dartiis xaaladii caafimaad waxay sababtay in aniga iyo adigu aynan nolol wadaagi karin inaa fahmaysiinaa rajaynaya ma fahamti saasuu igu yiri ayay tiri marka dhakhtarkiiaan u tagayuu dhahay awal dhakhtarka wuxuu idhahay macnaha waxaan u qaatayuu dhahay xabada hadda koor ku dhacday waxaan u qaatayuu dhahay inaan mustaqbal samay karo uu guursan karo balse hadda markaan dhakhtarkii u tegay wuxuu igu dhahay waxaan ku yiri dhakhtar waa guursaday haddana xanuunkaasaan la soo dhacay marka dhakhtarkii wuxuu ugu yiri yaa waa guursaday mustaxiil waa inaanaa guursatid gabadha sida ugu dhaqsiyaha badan gurigeeda u celi waxay tiri aniga waxaan ahay gabadha gurigeeda sida ugu dhaqsiyaha badan ugu celi markaasaa dhakhtarkii waxaan ku iri heesee camal maya naag inaad guursatid oo la aqal gashid iska daa oo mustaqbal samaysid taleefon xataa inaad kala hadashid laguma ogolo celi gabadha marka saasuu ugu yiri waan fahmayay tiri dee dadka aqli leh waa iska fahmayaan gabadhan iyo wiilkan mustaqbal iyo noloshii iyo xuquuq sawjeenkii ma wadaagi karnay tiri marka aniguna shala maahna daraada li soo guursado 7 aan ku jirnaa markaasaan waxaan ku iriyay tiri Aisha waa qof iimaan leh ma sha Allah tabaarakallah waxaan ku iriyay tiri hebelow haddii aad ka cabsanaysid inaan dadka kugu ceebeyn doono waxaad ogsoonaataa inaanan sheekadaada aanan dariska iyo ehelka iyo qaraabada qofna aanan u sheegi doonin oo aan sirtaas qarin doono oo aanan ku ceebay doonin midda kalena haddii aad ka fakaraysid in aan guurka kugu nici doono oo aan kaa tegi doono oo aan xaaladdan kugu sabri doonin aboo ku xariiqo maskaxdaadana ku xariiq inta uu ilaahay caafimaad kaa siinaayo waan kuugu sabraa waana kula sii joogaa mar waana kuu ahaana gurigaana kuu joogaa ehel iyo asxaab iyo qaraabana midna uma sheegay halkii aan ku xariiqanay go'aankii markaa xariiqanay sidii aan nolol noogu bilaabatay tiri oo wiilkii aan isqabnay wiilkan marka waxay tiri aniga iyo asagu nolol iyo xuquuq soo jeen waxay tiri ma wadaagi karno sidii aan gabar ku ahay waa u joogaa taas waxa ii sii raacsanay tiri wiilkan wax dhaqaale ah uu haysto waxaa la galayay tiri wadanka anigoo xaaladaas ku sabraayo marxalad dagaaladii amxaarada oo wadanka ay soo galayeen ayaa la galay waxaa taas ii sii raacsanay tiri qof walbo iga hor imaado Soomaali waa taqaanaa hadde heblaayo uur ma yeelatay heblaayo markaasaan waxaan islaahay tiri uur ma yeelan haddaa hore ka tiraahdid ama lagu dhahaa sheekada macnaha waxay tiri dad ama isbitaalku galay ha noqoto ama ehel fuga noqoto dad baa ogay tiri laakiin aniga xaggayga waxaan ka soo horjeedahay tiri inuu ogaado qof kasta waxaan ilaahay tiri bishaan malaha insha Allah yeela doona adigu waxaa dhacday tiri qof walbo ilaahay bilaay uur ma yeelato waxaan ilaahay insha Allah waa soo socdaa saas iyadoo xaaladu tahay
ayaa waxaa dhacday tiri Soomaali bal arag ama bini aadanka shu'uunaha aanan loo dirsanin arag waxay tiri anu ninkayga u sabraayo oo waxay tiri cidaydina aanan u sheegin cidiisana warkiisa daa asxaabtayda daa ayaa waxaa dhacday tiri maalmaha kamid ah 2 gabdhood ee gurigayga isku balansaday markii isku balansadeen ayaa waxaa dhacday tiri in gabar dhaqtarad ah oo xaajigayga isbitaal uu ku jiri jiray markii ay xabadu ku dhacday ay kalkaaliso ka ahayd la soco qaybta labaad hana moogaanin qisadan inta aad soo dhageysatay way ka sii xanuun iyo murug iyo saameyn badan tahay waxaa ku jirta riyooyin waxaa ku jirta dhimasho waxaa ku jirta isla guursi la soco qaybta labaad insha Allah